Albert Einstein waxa uu dhashay sanadii 1897 waa ninka aynu badankeena u naqaano inuu ka mid yahay dadkii ugu garaadka sareeyay ee koonka soo maray. Garaadkiisa, aqoontiisa iyo waxa uu dunida ku soo kordhiyay waxa ku lamaana guuldarooyin badan oo uu ka soo gudbay. Markii uu dugsiga ku jiray waxa uu la daalaa dhici jiray barashada qoraalka iyadoo la aaminsanaa inuu qabo xanuunka loo yaqaano dyslexia oo ah khalkhal ku dhaca hanaanka akhriska iyo qoraalka. waxa uu ahaa qof aan ku fiicnayn waxbarashada waxaana taas ku cadeynaysa waxa uu 16 goor ku guuldareystay inuu ka gudbo imtixaanka uu ku gali lahaa dugsiga Swiss Federal Polytechnic oo ku yaala magaalada Zurich. kuma uusan istaagin halkii oo kama hadhin waxbarashadii ee dugsigii aakhirkii dambe uu galay, balse intii uu jaamacadda ku jiray waxa uu la taagdarnaa waxbarashada una dhawaaday inuu isaga baxo jaamacadda. waxa uu darajooyin hoose ka keeni jiray duruusta iyo culuumta uu jaamacadda ka dhigto. aabihii inta aanu dhiman waxa uu aaminsanaa in wiilkiisu yahay mid khasaaray, taasoo Einstein ku keeni jirtay niyad jab aad u weyn. markii uu jaamacadda dalka kaga qalin jabiyay waxa uu la yaabanaa ama uu ku wareersanaa halka uu gaari doono iyo sida uu noqon doono. aakhirkii waxa uu helay shaqo caymiska iibgeyntiisa isagoo guri kasta oo deegaankiisa ah garaacay si uu u iibgeeyo caymiska uu ka howlgalayay. muddo 2 sanadood ah kadib waxa uu shaqo ka helay xafiiska Patent Office oo ah meel lagu ururiyo waxyaabaha cusub ee la ikhtiraco. waxa uu ka noqday caawiye imtixaan assistant examiner waxaanu qiimeyn jiray codsiyada alaabaha kala duwan ee xafiiska soo gaadha. dabcan qofka aad arkaysaan caqabadaha iyo guuldarooyinka soo wajahay waxa uu dunida aakhirkii ku soo biiriyay taariikh aan ilaa hadda harin, gaar ahaan cilmiga fiisikiska iyo xisaabta physics and math. sidoo kale waxa uu inaga caawiyay inaan fahamno sida cilmiga dunida yaala u shaqeeyo. waxa uuna sameeyay ama fikradahooda lahaa shuruuc hadda lagu dhaqaajiyo cilmiga fiisikiska. waxa uu noqday falyafuus falsafadaha siyaasiga ah ee ka soo burqadaan. waxaanu sanadii 1921 ku guuleystay biladda Nobel Prize. waxa uuna bilaabay aragtiyo muhiim ah. waxa uuna intaas oo dhan ku kasbaday dadaal iyo horumar. aqoonyahan kasta oo waxbarta wuxuu yaqaanaa Einstein waa uuna dawo fadhiistaa cilmi badan iyo maskaxda uu lahaa awgeed. waxaana maanta halkaas kusoo gabagabeynaynaa taariikh nololeedkii koobnaa aan ka diyaarinay aqoonyahanka dhanka fiisikiska iyo xisaabta Albert Einstein. tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.